gudahaan wadamada islaamka saaka laga tukay salaada ciid al-fitriga ayaa shacabka ku dhaqan degmada garada waxay saaka u dareen sidii ay tukan lahaayeen salaada ciid al-fitriga isla markaana ku tukadeen garoonka weyn ee lagu tukay salaada ciida iyadoo halkaa ku tijiyay sheekh beledka degmada garada sheekh cabdisalaam dadweynaha ku dhaqan degmada garada oo ay salaadii ciida kala soo qayb galeen maamulka cuqaasha waxgaradka iyo waayeelka iyo dhammaan bulshada ku dhaqan degmada garada ayaa saaka jawga degmada garada wuxuu ahaa mid degan isla markaana dadku waxay isku salaamayeen ciid mubarak iyo ciid al-caafiya wajiyada dadka ay ka muuqatay farxad aad u bilacsan isla markaana ku labisnaa dhar aad u qurux badan iyadoo khudbad dhinacyo badan taabanaysa halka dadweynaha uga mariyay sheekh beledka degmada garada sheekh cabdisalaam وعن رب سبحانه وتعالى ويدسنينا إنك إنه غيرك يا مسلمين تهابا إنه نقص علي رمضان كلا يكوى أنت وكبضني يازم لنا آتك وفر بضن خير كوضن آتك وبدي هاي إنك إذا مسلمين تضمان توذكوا الصجن صحة إيو عافية أبني إيو دجنان إيو إيمان الله سبحانه وتعالى وحنا ويدسنينا صوم كينو نجا أقبله يستاق إيو قيام الليل كي إنه رب سبحانه وتعالى وحيابي أن لب حري ونجا أقبله يو إنه الله سبحانه وتعالى عمرك يكون ختمه خير إنه رب سبحانه وتعالى عيدك وكدغو مدبر كيسن مالمانا ونغدغو مسعاده sidoo kale iyaguna waxa ka hadlay qaar kamid ah cuqaasha maamulka degmada garada iyagoo baaq nabadeed u diray colaadda ka taagan degmada ceelafweyn ugu horeyna waxa ka hadlay maayirka degmada garada mudane faarax aadan ciise oo soo ku nuuxnuuxsaday ahmiyadda ay leedahay nabaddu deegaanada hoostaga gobolka Sanaag sidoo kalena ugu baaqay dadweynaha ku dhaqan degmada ceelafweyn iyo agagaarkeedaba in ay ilaashaan nabadda isla markaana Ilaahay uga bariyay inuu nabad taama ka dhaliyo باقة لتيريه نبضت أيام كنت هاجرنا ولمرة يوقعشة يعتكركا دمام بهر كردك يهدي تاي وايل يوحكر يدمر يهوين يمامل بوحة نتشيديننا باقة نبضت أيام نتشيديننا بروشة ولا على هيجا هير عرفوين أنا كلام مجالات النهاية لكن اسمه مجا عن هاي أنا أحب كل دونين وحيجا كده عنا أنا كنا سامين يان sidoo kale iyaguna halka ka hadlay aqal maxamed cilmi maxamuud gudoomiyaha maxkamadda degmada garada jaamac awil odayaal iyo waayeel iyo waxgarad kale dhammaantood ummadda islaamka ugu hambalyeeyay munaasabadda ciid al-fitriga awgeed inuu ciidkiisa ku gaarsiiyo bash iyo barwaaqo sidoo kalena deegaanada hoostaga degmada garada ugu hambalyeeyay munaasabadda ciidka isla markaana dadweynaha deegaanka ceelaf ugu baaqay inay adkeeyaan inaan fariino diro ceelafweyn ilaa bishii oo beri hore muharram sanadkii hore markastoo ay maalin wanaagsan tahay dagaal iyo qabqab bay ku seegaan magaaladiina way xumeeyeen diintoodina way xumeeyeen meeshaas waxaan leeyahay wax Ilaahay idin faray fartooma nabaduna waxay ku jirtaa nolosha bini aadamka iyo nolosha wadanka iyo nolosha diinta wad oo madrasare warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland garada